dilaaga qarsoon cadowga ay ka cabsadaan dadka ku nool Toronto haddii la qaban lahaa 2003 markii uu geystay dambigii ugu horreeyay noloshiisa shacabka reer Toronto waxay ka badbaadi lahaayeen dilaag qarsoon oo geystay dilal taxana ah waxaana suurtagal noqon lahayd badbaadinta dad rayid ah oo aan dambi lahayn kuwaas oo si arxan daran u dilay ninka lagu magacaabo Mark Arthur waxay ahayd fursad luminteedu qiimo adag ugu kacday bulshada ku nool Toronto oo Arthur noqday cadowga weyn ee ay nafahooda uga baqaan sanadku markuu ahaa 1970 ayuu Arthur dhameeyay waxbarashada dugsiga sare wuxuuna guursaday gabar ay dugsiga wada dhigan jireen 30 sano ayayna ahaayeen qoys degan oo si dhibaato la'aan u wada nool laba caruur ayayna kala heleen waxayna u noolaayeen si lamida bulshada inteeda kale ha yeeshee intaasi waa humaaga u muuqda qofka dibadda ka jooga guriga oo kaliya Arthur waxa uu ahaa qof qariban balse bulshada oo ahayd waqtigaas mid dhowrsan oo aan aqbali karin dadka noocan ah ayaa u diiday inuu banaanka ula soo baxo fikradihiisa qaldan sagaashameeyadii ayuu Arthur bilaabay inuu ka shaqeeyo suuqgeynta iyo iibinta garamadaha iyo nigisyada shaqadiisuna waxay ahayd inuu dharka ka iibiyo waqooyiga Ontario safarada uu ku tagay meelo ka baxsan tuulada uu ku dhashay oo lagu magacaabo Woodville ayaa u suurtageliyay inuu barto dad qariban oo noociisa oo kala ah ugu dambeyn waxa uu xaaskiisa u sheegay inuu yahay kooxda leh calanka midabada leh oo uu arkay culays tuurta ka saaran wuxuuna u guuray magaalada Toronto oo uu ka helay xaafad ay isugu yimaadaan dadka noociisa oo kala ah waxay ahayd nolol cusub oo bilaabantay maadaama uu ka soo jeedo tuulo dadkeedu ku tiirsan yahay beera falashada waxa uu shaqo ka dhigtay qurxinta iyo hagaajinta beeraha guryaha magaalada Toronto dhacdadii koowaad Mark Henderson waxa uu ahaa qofkii koowaad ee weerar kala kulman ninkan waxa uu sheegay inuu yaqaanay wejiga Arthur oo ahaa shakhsi ku cusub magaalada gacanta ayuuna ii taagi jiray markastoo aan is aragno aniguna sidoo kale gacanta ayaan u taagi jiray habeen ka mid ah minada bisha October ee sanadka 2001 waxa uu dareemay Mark Henderson qof gadaashiisa ka soo socda waxa lagu jiraa waqtigaas dabaaldega cabsi gelinta ee loo yaqaan Halloween-ka sidaas daraadeed iskuma dayin inuu dhaqso u fiiriyo qofka gadaashiisa ka soo socda waxa uu ahaa qaladka kaliya uu sameeyay sababtoo ah waxa uu ka warhelay bir adag oo madaxa lagaga dhuftay gadaal ayuu fiiriyay waxa uuna gacantiisa iska qabtay nabar labaad oo madaxa kaga dhici lahaa qofka weerarka soo qaaday waxa uu xirnaa maaskaro indhihiisa oo kaliya ayaana la arki karayay waraysi uu siiyay wargeyska ayuu ku sheegay Mark Henderson in waxa kaliya oo badbaadiyay uu yahay iska caabinta iyo dagaalkii uu kala hortagay Arthur oo meesha isaga cararay Henderson intii uusan miir beelin waxa uu wacay nambarka gargaarka degdega ah ee 911 waxa uuna ku toosay isbitaalka sida ka muuqata sawirada uu la wadaagay wargeyska Daily Mail in ka badan 9 qodob ayaa madaxiisa la tolay sidoo kale waxa uu ka jabay farta dhexe ee gacanta bidix 6 toddobaad ayaana lagu daaweynayay qaybta fiisaterabiga ee isbitaalka dhacdadan darteed Arthur waxa la soo taagay maxkamadda balse waxa uu ka badbaaday xukun xarig oo gaaraya 2 sano maadaama uu dhakhtarka cilmiga nafsigu sheegay inuusan khatar ku ahayn bulshada dhacdadanina ay ka dhalatay caraxad dhaaf ah waxa lagu xukumay 1 sano oo xabsi guri ah iyo inuusan gelin xaafadda ay ku nool yihiin dadka calaamadaha leh sidoo kale inuu si joogto ah ula xiriiro dhakhtarka nafsiga maadaama uu ahaa 50 jir aan kiis hore u gelin boolisku waxa uu la macaamilay si sahlan waxayna ku qanceen inuusan khatar badan soo wadin sanadaha uga haray noloshiisa xoga la xiriira kiiskiisana kuma aysan xarin galkiisa arrintani Arthur waxay u suurtagelisay inuu noqdo mid aan laga shakin maadaama faylkiisu yahay mid nadiif ah Arthur waxa uu noqday ugaarsade xol ah oo magaalada ku jira dadka uu dilayana waxa uu ku qancin jiray inay ka aqbalaan casuumaad gurigiisa intaas kadib waxa uu ku gaadi jiray fursad si uu u sirqiyo xarig adag oo u diyaarsan awoodda jirkiisa iyo cudidiisa oo xoogana ayaa u suurtageliyay inuu laayo dhibanayaashiisa oo dhammaantood ahaa dad qaxoonti ku soo galay dalka oo aan haysan cid soo raadisa qof walba oo uu dilo waxa uu kala heli jiray sawirro xasuus ah waana habdhaqanka iyo caadada ay ka midaysan yihiin kuwa ugu caansan dilaayada qarsoon ee dunida soo maray sawirradan waxay uga dhigan yihiin diiwaan ay ku kaydiyaan guulaha ay gaaraan iyo waxqabadkooda waxayna xilliyo badan waqti ku qaataan daawashada dadka ay nolosha dhaafiyeen marka laga soo gudbo labada tallaabo ee dilka iyo qaadista sawirrada Arthur waxa uu bilaabi jiray wejiga ugu dambeeya hawlgalkiisa oo ah kan ugu khatarta badan waxa uu guda geli jiray qorshaha uu kaga takhalusayo meydka gurigiisa dhex yaala wejigani waxa uu ka koobnaa 2 tallaabo midda koowaad ayaa inuu meydka u gogooyo gobollo yaryar oo bac lagu qaadi karo
halka tallaabada labaad ay ahayd inuu ku aaso beeraha guryaha uu ka shaqeeyo. 10 guri oo ku yaala magaalada Toronto ayuu beerahooda ka shaqeeyaa dilaaga naxariista daran ee Arthur. Macaamiishiisuna waxay ahaayeen kuwa ku qanacsan shaqada uu qabto dilaagan 60 jirka noqday, balse ma oga inuu beeraha ku nafaqeeyo hilibka bini'aadanka. maalintii waxa uu ahaa nin sharaf leh oo shaqaysta, habeenkiina waxa uu ahaa dilaa halis badan oo dhex wareegaya magaalada. haddaba aynu eegno dilkiisii ugu dambeeyey. sida badan dilaaga qarsoon waxa lagu ogaadaa dilkiisa ugu dambeeya, inta ka horreysa lama garto qofka uu yahay, mararka qaarna xitaa lama aqoonsado tirada dadka uu laayay inta ay dhan tahay. haddaba aan u nimaadno dilka aan ka hadlayno. maanta fashilka howlgalkiisu waxa uu bilowday markii uu dilay nin caana oo lagu magacaabo Andrew Kinsman. ninkan waxa uu kaga duwanaa dadkii hore uu dilay inuu ahaa nin la yaqaan, isla markaana leh asxaab tiro badan. 26 Juun 2017 ayaa la waayay. 3 beri kadib ayaana la gaarsiiyey booliska in la la'yahay. baaritaanka hordhaca ee booliska waxa lagu ogaaday inay jiraan dad kale oo maqan, waxaana la sameeyey tiim dambi baaris oo dabagala kiiskiisa. kiiska mashruuca dabagalku waxa uu ahaa mid qarsoodi ah, waxaana loogu magac daray Project Prism. dabagalka waxay ka bilaabeen kiiskii dilka ee ugu dambeeyey, waxayna fiirsadeen CC kaamirooyinkii ku yaalay meel walba uu maray inta aan la waayin. muuqaalkii ugu dambeeyey ay helaan waxa uu ahaa isagoo sii fuulaya gaari noociisu yahay Dodge Caravan 2004. haddaba midda la yaab kale ayaa 6,000 oo gaari oo noocan ayaa magaalada jooga, keligiis ayaana leh 5 gaari oo noocan ah. baaritaan dheer kadib, dabagalku waxa uu ku soo ururay dilaaga oo dhankiisa dareemay inuu khatar ku jiro. sidaas darteed waxa uu ka takhalusay gaarigii uu watay habeenkii uu geystay faldambiyeedka. waxa uu ahaa nin la daba joogo. dembi baarayaashuna waxa uu suura gashay inay gacanta ku dhigaan gaariga, ayna ku sameeyaan baaritaano. waxayna ka heleen DNA-ga Andrew Kinsman iyo Salim Izan oo ahaa nin Turki ah oo ka mid ahaa 12 qof ee la waayay. sidoo kale kooxda dambaarista waxa uu suurta gashay inay si qarsoodi ah ku galaan guriga, waxayna tabsadeen kombiyuutarkiisa oo ay ka heleen sawirro argagax leh oo uu ka qaaday dadkii uu laayay. qaar ka mid a dadka uu laayay galkooda waxa uu ku qoray magacyadooda, halka qaar kale uu siiyey nambaro oo keliya. tiimka dambaaristu iyaga oo haysta cadeymo ay ku soo xidhi karaan, haddana waxay ku kaaftoomeen inay dusha kala socdaan dhaqdhaqaaqiisa si ay u ogaadaan in ay jirto cid la shaqaysa iyo inuu yahay ugaarsada madax bannaan. Arthur isaga lama socdo horumarka boolisku ka sameeyeen kiiskiisa, waxauna iska wataa noloshiisa caadiga ah. waxaa la soo gaaray bishii 1 ee sanadka, kooxdii dabagalka ayaana indhahooda ku arkay Arthur oo sii gelaya gurigiisa, waxaana la socda nin kale. dabcan waad fahmi kartaa wax uu samayn rabo. sidaa daraaddeed daqiiqado kooban gudahooda si degdeg ah ayay weerar ugu soo qaadeen guriga, waxayna gacanta ku dhigeen Arthur oo maramado madaxa u geliyey dhibanihiisii ugu dambeeyey. weli ma dhiman oo wuu noolaa, balse neefta ayaa si ciriiri leh uga soo baxaysa. halkaas ayaa lagu qabtay dambiile argagax ku riday magaalada Toronto. baaritaano iyo dabagal 6 bilood qaatay ayaana horseeday qabashada Arthur. sawirkiisa ayaana lagu daabacay wargeyska maxalliga ah. qaar badan oo ka mid ah macaamiishiisa gaarka ah ayay filan waa ku noqotay inay maalin walba la kulmi jireen dilaa naxariis daran. bishii 2 ee sanadka 2018 ayaa la horkeenay maxkamadda, waxaana hortiisa laga aqriyay 8 nin oo dilkiisa lagu soo eedeeyey. qiraal buuxa ayuuna muujiyey. madasha xukunka waxaa fadhiyey dadkii iska lahaa 57 guri oo uu beerahooda ku qarin jiray meydka dadka uu dilo. dhinaca booliska gudihiisa waxaa jirtay canaan ka dhalatay weerarka koowaad ee uu geystay. Arthur haddii la xidhi lahaa maalintaas, dil iyo dhibaato uma geysteen bulshada. intaas kadib xabsidaayin ayaa lagu xukumay Arthur, maadaama toogashadu aysan qayb ka ahayn shuruucda iyo xeerarka dalkaas. runtii dad badan ayaa xukunkan u arkaa inuusan u dhigmin dilalka xiriirka uu geystay, halka dad kale ay ku niyadsan yihiin in la xukumay uuna xiran yahay oo uusan bulshada dhibaato dambe u geysan doonin. halkaasna waxaa ku soo dhammaaday kiiska dilaaga argagaxa lahaa ee ay ka cabaadeen dadka ku nool magaalada Toronto.